aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta doortay hoggaankiisa 4 sano ee soo aadan. aqalkan oo ah laanta qura ee ka badbaaday inuu ku milmo siyaasadii halka doonaya madaxweyne Farmaajo ayaa dib u doortay Cabdi Xaashi Cabdulaahi. sida aan ku sheegnay warbixinteennii Axaddii, Xaashi wuxuu mudnaa abaalgud siyaasadeed kadib markii uu ku faraadeegay inuusan aqalkani noqon mid u adeega danaha gaarka ah ee nidaamkii dalka ka talinayay 5 sano ee la soo dhaafay. Cabdi Xaashi oo la fahamsan yahay inuu helay badi codadka xubnihii uu horey gudoomiyaha ugu ahaa ee dib u soo helay kuraasta ayaa dhinaca kale waxa uu garab fiican ka helay mucaaradka Siciid Dani iyo Axmed Madoobe. inkastoo ay jireen warar maalmihii la soo dhaafay la isku xijiyey Farmaajo iyo Cabdi Xaashi, haddana sida dirqiga ah ee uu ku badiyey iyo tirada codadka ee uu Saalax helay ayaa beeninaysa xogtaas. Cabdi Xaashi Cabdulaahi wuxuu helay 28 cod halka Saalax Jaamacna uu helay 24 cod. Dube oo tartanka ku jiray oo aan garab siyaasadeedna haysan ayaa isna helay 2 cod. Xaashi wuxuu ku adkaaday wareegii hore ee doorashada. haddaba maxay ka dhigan tahay in dib loo doorto Cabdi Xaashi Cabdulaahi? qiimaha halganka. Cabdi Xaashi wuxuu 3 sano ugu dambeysay dagaal kula jiray kooxda madaxweyne Farmaajo. wuxuu diiday muddo kororsigii 2 sano. wuxuu gudoomiye ka noqday madashii badbaadinta qaranka, waxaana ay dib u doorashadiisu muujinaysaa qiimaha uu gooyo halganka siyaasadda. tani waxay fariin dhiirigelin u tahay siyaasiyiinta noloshooda ku xira qofka madaxtooyada fadhiya. 2 mucaaradka. in Cabdi Xaashi guuleystay waxay mucaaradka u tahay dhiirigelin la xiriirta doorashada madaxweynaha. inkastoo la aaminsan yahay in kooxda madaxweyne Farmaajo aanay xoog badan iska gelin doorashada gudoonka aqalka sare oo iyagu ay mar walba ahmiyad gaar ah siinayaan doorashada gudoonka golaha shacabka, haddana in qof sida Cabdi Xaashi loo yaqaano inuu mucaarad yahay in laga adkaado dhabarjab ayay ku ahaan lahayd mucaaradka ka soo horjeeda Farmaajo. 3 abaalgud siyaasadeed. dad badan ayaa qabay in Cabdi Xaashi mudan yahay in loogu abaalgudo sida uu aqalka u eetiray, sida uu midnimada ugu taagan yahay iyo diiwaankiisa wanaagsan, taasoo ugu dambeyn sida muuqata maanta la fuliyey. 4 badqabka aqalka sare. mar haddii Cabdi Xaashi dib loo doortay waxay ka dhigan tahay in aqalka sare uu badqabo oo uu mar kale ka badbaadi doono inay laqda madaxtooyadu cid walba oo loo doorto hoggaanka dalka. dhinaca kale, Cali Shacbaan oo Hirshabelle laga soo doortay ayaa ku guuleystay kursiga gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare, halka uu ku-xigeenka labaad ku soo baxay Cabdulaahi Xirsi Timcadde oo ka yimid dhanka Puntland. doorashada maanta qabsoontay aqalka sare ayaa ka dhigan tilaabo wanaagsan oo ay hore u qaaday doorashada la daahiyay ee Soomaaliya. maxay kula tahay adiga?